الإله الأمين في كل وقت واحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودل إيه دبد بإذن كالسلام يساو مدرج جبوتي waxaan salaamayaa caaq ismaaciil waxaan salaamayaa itabaaleel waxaan salaamayaa dowladda dhammaan baan salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo baxardaada isagii oo boqshadaysan raadiyoyna bukaaco ha laga dhagaysto waa qayladhaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogta siday ballantu ahayd waxaan ku bilaabayaa gadiidshaladiyo cumar waa shahiid gacanka xaqdaran baa dishay maleeshiyaadka umagafi hogaanka wahaya ee booliska ayaa wiilka yar ku dhagaroobay cabdadiisa u qoonsaday waxa falka loogula kacay ambase uu ku mutaystay wax cadaalada iyo wax garsoora idinkama hayno qaranko isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay cadaalad iyo garsoor dhaba gacan ku dhiglayaashii oo cadaalada horgeyso caaq ismaaciil wad ka waaqsatay cadaalad darrida xageedii baad martay daladii cadaalad darridaad noqotay annagana waxa nagu waajiba inaan ku nidhaaho xal mahay sida xilka wareeji waa dabuubta qayaxan ee reer Jabuuti kula hortaagan yihiin eed adiguna isdiidsiinayso ummadda reer Jabuutina waxaan ka codsanayaa dal iyo dibad markaad gadiidshaladiyo cumar maqashaan faataxada u mara waa shahiid gacanka xaqdaran baa dishay in ilaahay naxariistiisii janno ka waraabiyo taa markaan ka gudbo waxaad weli naga haysataan Fuaad Yuusuf Cali ليتنو فؤاد يوسف علي دوليها ciidamada cirka laba xidig leh Fuaad Yuusuf Cali sidii baad baadil iyo xaq darro ugu haysataa sidii baad tacadiga ugu haysataa sidii baad cudud ugu haysataa sidii baad qabiyaalad qayaxan iyo hilo iyo gardarro garab haysataa inanka adadeerka u tahay wahiib daraadi wahiib banahays wahiib seesese mabuutu seeseseko ayaad inanka yar miskiinka u duleysay oo u damirtay oo dacagta hoosteeda doonaysa inaad geliso laakiin ilaahay kuma jiro taladiina ilaahay kuma jiro waa ka intaaba soo gaaray barina anaga kala soo baxayna hadaan nool nahay oo amaanada hayno indhahaagana waad ku arki rabbina waxaan ka baryayaa inuu ilaahay kugu simo Fuaadon gabood kala soo baxnay iyo adigoon katiinadii intaan kugu xidhnay gabood ku geynay facaalu lima yurid yaa ka sareeya kun fayakun bayna ku noqonaysa ilaahay idankiisa waana darki doonta caaq ismaaciil waad ismahadisay hadaad weer xidhan weydo marka ay reer Jabuuti kugu kacaan de ayaama ku haray hadaad sharaf iyo ciis iyo maamuus leedahay oo inuu damiir leedahay inaad iscasisho oo meeshan ka baxdo ayaa ku roonod gabood adigu damiirkaaga isku geyso ilandhiig iyo dhagar baad gasho waad soo ogtaa inaad dhagar qabad tahay marka carruurtayada yar eed gabood uga dhigtay maaragtay ee saldhig eed gardarro ku wada haysatay baadil kugu deylmayno waxa kalood naga haysataan Sheekh Jean Yuusuf Maxamed Cali Gabase oo ciidamada ilaalada jamhuurka ah kamid ahaa oo adiga isagoo 2 bilood bilaa mushaar albaabka ka furi jiray ilmaha yar ee ubadka yar ilmahaaga leeg ee sida u wada casishay ee wada aabaha ah ee caruuraha leh ee caruurahooga iyo reerahooga ka wada xarintay daba lagu dayni waad isleedahay in lagugu dayn may kuwana ku ciqaabi adi kuwanaad ciishay iyaa ku ciqaabi sidii kii saaxiibka ay Suudaan shabaglaha waa lagugu qaadi carruurta yar ee masaakiinta doqonkii adadeerka oo hayde benda saactimoolii buu xidhan yahay de Marvin Gaye iyo wax daran iyo kii kale abajahalaad lahaydeen wixii isku wada maarta huwanta ahay halkan fadhiyay ayaa inanka yar miskiinka iyaguna ka daba lusha waxa la wuxuu ku sameeyayna ma jirto waa sidoo 2 bilood mushaar noo weydiiyay de waleeni weydiin dadku mushaar bay ku shaqeeyaan haddaad doonaysiin bilaash leedin ku shaqeeyo xoolihii dalka dhabarkaad marsateen dadka mushaarkooga ma u diidaysiin waa laynagu haystaa Yuusuf Maxamed Cali Gabase tubaahe kalaha gabootul baatilika yar minki taarigeeni tikitaana baka maynu musiini kiyaaba mantu tibattaninki tibarabiti numayaba yey Maxamed Cali Gabase asaaku eedayan xaalad kullirin yaarige yalliyani nanu caaq Ismaaciil dintoku ayamni raaci imrika aafiyata sugnik وهو جرى كادونا محا عندانيتي لحي أكو كوالسك لباتنا تقري كوبسيني تو عندانيتي قبوت بين كادو تابكال أبيني ملونو سنام الباهيني ملونو جاندارا ما يوسن عديني كنا ملهانا فرانا
tamahinkii baatili gedhamay uma dhidhibaani tama dhidhamaani cundhaanetee deenin togori xayu kullikel tabahasin dhallinyaradii yaryarada tajaro laga soo qaaday 6 ahayd gabood baa la geeyey kolkii horena iyagaa yidhi askariga dadkii dilay annagaa garanayna imikana carruurtaa yaryar ee masaakiinta ayay ku sababsanayaan weliba si inanka yaree miskiinka Cumar Daawud sidoo walaalka halka uga soo ciyay uu yidhi annaga dee walaalkii waa walaalkiisna waa isaga ma qofbaad qofkiisa u qabsanaysiin dee ninkani mas-uulka ma aha walaalkii naftiisu mas-uul ka yahay wuxuu sameeyeyna ma jirto cundhaaneti aben ma lihay baatili Cumar Daawud wow kutobu koyti asa abdo yabe to hisabata ko away ka kahloonu ya labahay waxariya yallak meesita ilaahay ka baqa oo dhalinyarada masaakiinta ah eed mid walbi dambi u sameynaysiin isagoon dambi lahay waxa la wuxuu idinku sameeyeyna aanay jirin marka Caaq Ismaaciilow doonidaadii way sii degaysaa adiguna waxaad isku haysataa khabiir nin wax walba dhameeyay caaqnimadiina way kugu soo meexaysaa dee adaa garan halkaad ka bixi iyo qiilkaad ku bixi rabbina waa caadil uu kuu seeta dheereeyey laakiin waxaad moodaysaa karti iyo awood inaad waxaa ku samaynayso annagu kaaga hadhimayna carruurtayada kulli annaga gabood kala soo baxayna haddaan ammaanada hayno reer Jabuuti waa idinka arkaya waxbay nooma yaalaan aan fadhiga ka kacno Ismaaciil Xuseen ninkii lagu toogtay Cali Sabiix allaha u naxariistiisa janna allaha ka waraabiyo isagoo beertiisa ku sii socda la tacshiiradeeyay oo xabad lagu furay si wuxuu de ma aqaan terrorist yahay ma snipernimaday ku baranayeen waa calaamada su'aal ninkaas booliska toogtay sabab uu toogtay lama garanayo waa nin miskiin oo beertiisii ku socday oo warshada sibirkana gaardiyaan ka ahaa Ismaaciil Xuseen allah u naxariisto gacanka xaq daran badisho waa shahiid waxay igu maqala in aabihii la weeraray ninkii booliska ahaa ee rasaasta ku furay marxuun Ismaaciil ninkii toogtay ee dilay in aabihii la weeraray aabihii la dakhray Cali Sabiix dhiladaas taa la Caaq Ismaaciil magafaana ku keenay Soomaa yarka yare boolisku xabada u dhiiba bilba ma ahayn boolis baa leeyahay ma yaqaanaba malaha xabada dadka ku daadiyun baa laga yiri rash kaga dhigun baa leeyahay dadkani waxba ma aha xabada ay nagala qiimo weyni dee wata dawladdaadii wata dadkeegii laynaysa taasaa dawladda waa burcad dawlad terrorista tani horteed yaa arkay waa argagixiso dawlad isku sheegaysa oo waliba hadhoona odhanaysa dad baa argagixisa iyaga terrorista ah waa ka de allah u naxariisto Ismaaciil Xuseen dhammaan waxaan leeyahay qoyskii qaraabadii uu ka baxay ilaahay sabriyay ma saadaqahay naga wada siiyo Ismaaciil wii naga wada baxay gacanka xaq daran baa dishay terrorista dawlad la yiraahdo dishay oo Caaq madax ka yahay isagaan u haysanaa anagu isagaan u haysanaa adigaana lagu haystaa darwada laamka lagu horkeenay Caaq Ismaaciil dadka masaakiinta ay sniperska ku sii daysay ee iska shoot gareeyay leeda magafa uu ka yahay Shariifka waa Shariifkii Mareykanka xaafada kanide waa maxay ahayd iftaaxi wax Klebas Bartu baa leeyahay magafa inta dambe wax walba ana dhameeyay wax walba ana sameeynayo yiraaha Abdullaahi Batara Cali Caruur magafa maxlal aygi balaqo wax allaaliyo wuxuu ku fiican yahay xumaanahay ma jirto dee dhiigaas aad ka weeran yahay magafi askarigaada u dhiibay hubka askarigaada amro dadka la yiri ma dee ninkii dhimay allah u naxariisto gacanka xaq daran baana dishay dhiigaasna maanta Cali Sabiix buu yaalaa askarigii yaraayo toogtay aabihii dhakhtarku yaalaa waa la dilay dee dad buu ka dhashay askari walba wax dilay hadii dadkiisa la laayo dee maxaa adiga ku yaala askarta waxaan leeyahay wariyaa qoryaha dhiga qoryaha dhiga dadkiina haleynina way idinka arkaya dagaal sokeeye ayaa meel walba la rabaa in labadii wada degan ee walaalaha ahaaba qoryaha la iskugu dhiibo waana cilmiyadoodii iyo filinadoodii iyo falaga u sheegay in dhiig la daadiyo falag iyo fal shaydaan bay ku foogan yihiin waa taa baraleel iyo isagu isma dhaamaan labadoodu way jiriqsadaan markay dhiig waayaan ilkaha isla dhacaan dhiigay ku mabaan waa vampire marka caruuraha iyaga masaa'un baad u leeynaysiin Caaq Ismaaciil kugu daawanayna Ismaaciil Xuseen allah u naxariisto ilaahay naxariistiisa janna allah ka waraabiyo waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay marka Caaq Ismaaciil aday ku taalaade hawshaas adiga inankaaga magafe Klebas Bartu wax walba ana dhameeyay kulli xaaga ana caarifa ana garanaya ana sidan sameeyay muxuu sameyn
maxlal wax allaali wuxuu dadka ugu filan yahay lama garanayo saas ummadii wada kadeeday ummadii ugu dhexdhacay laba daaraale ummadii raacay sabiix gaajo iskugu turteen banaankii cali sabiix cawlida iyo basaasta iyo basanbaaska ka muuqda dadka damaada wax siinayo biilaya dadkii xareedooda yar ku shaqaysanayso idinka cunaha u qangalay marka reer cali sabiixow nolol xumada allayna baday waa inaan ka tashanaa oo ka boodnaa waa inaan ka kacnaa oo dhulkeena dhacsanaa oo waxeena dhacsanaa dhiigeennii baa dhulka yaala nolosheennii baa laynoo diiday inaad shaqaysatiin baa laynii diiday sadaqad baa la rabaa in layni bado dee ma yeelaynaan leenahay reer cali sabiix waxaan leeyahay waxaan la samaynayo waa dhafoor taabashiyo ficil laynagu dayayo laakiin aan ka kacno fadhigon dalkeenni iyo ciiddeenni iyo calankeenna dhacsano inanka inaga baxayna dhammaan buu inaga baxay ula dayn mayno kuna cafin mayno adduunkana waan kula soo joogsanayna haddaan ammaanada hayno askartu dadkii ay laysay kiisaska badan ee yaalla xuquuqal insaanka janeef ayuu kana ku biiraya ay ku talagal caaq ismaaciil caawan xaqiiqda kuu sheegaya kaagana hari mayno idinkuna dayn mayno waana inoo ballan haddaan ammaanada hayno dhiiggii aad gashay kana inuu ku biirayo gacan ku dhiigi laa tahay de waxba kaama geli wixii dhimanaya ma wiil baa kaaga dhimanaya mise gabadh adiga caruuraad naga laynaysaa waxaan leeyahay reer cali sabiixow waad arkaysiin maanta sabaa'an mansuura in sacabka la iskugu kiin dhuftay oo nolol laydiin diidaya soo ma aragtiin dee markaa ma raalli baad ka ahaanaysiin in sidaa laydin cagta hoosteeda laydiin geliyo oo laydiin gumeeyo oo xaqiinni iyo xuquuqdiinni lagu tunto xabad laydinku sooro oo xabad laydinku jawaabo ka kaca fadhiga le shanta gobol iyo magaalo madaxda aan dhiidhino aan waxeena u kacno ciidan iyo calankan inagaa xoraysanay ciidan iyo calankan inta ilaahay ka sakaysa inagaa leh caruurtayada la laynayana kugu dhaafi mayno caaq ismaaciil kuwa gabo adiga diyaaradda kula wareegaya caafimaadkooga raadinayay kuwan masaakiinta hadda ciid iyo calan kale diyaaradaha aad ku yaacaysaan xoolaha aad ka samayseen kuwanaa le de kuwaad adu leedahayba dadkan baa le cawlan eed u diiday inay noolaadaan eed u diiday inay laydha arkaan eed gaajada ku xakuntay dee maanta cali sabiix waxay ku jirtaa kufrafee bay ku jirtaa cali sabiix gaajay hadhsatay cali sabiix dulli iyo silic baad baday kaa yeeli mayno waad markaan ka gudbo dhalinyaradii deelesta ayuu soo maalmahan dhaweyd deelastii war baa jira ku laydhaa cabdilaahi cadaawasigoodo qalqaaliyo waa licas laydhaa inuu qalqaaliyo sidii qalamida daydaymaanayo arka markaad idin hor joogo wejigiisa u fiirsada waa licas nuuna waad soo celisay inankaad abtiga u ahayd maaha waa licas cabdilaahi cadaawasigeed halow waa licas haddaad tahay dabeel cas baan ku qaadi iyo isha dadka masaakiinta ah xoolahan aad janeef geynayseed swiiska ku qarsanayso xagee ka keentay dadkan ma laha masaakiinta raggan ma laha aad yoomiyaha aad telefoonka ugu yeedhiin ee tirahayn telefoon ha ku shaqeeyaan adduunka lama arag nin kool loogu yeedho nin maaragtay yoomiye joogta ah waar jabuuti shoomeer unbay lahaanaysa iyo shaqaaluhuna conventionnaire iyo waxay ahaayeen fonctionnaire waxa dadka dulligan baday ee dalanbaabigan baday waa markaad idinku timaadeen 8 boor baa leenoo 8 boor bay dadka iyagu yoomiye ka yihiin ka gaajoonayaane say ku dhacday cabdilaahi cadaawasigadow aad u prim de logement baad leedahay wax waloo xaquuqaad lahayd waad heshaa sidee ragga shaqadu ku socoto ee boorka heer kaa gaadhsiiyey u leeyihiin kii tuugga ahaa eed abtiga u ahayd ee tuugada lagu qabtay inaad soo celisay walcanaad leedahay ima soo gala caqligaa sidee loo akhriyaa adiga daawud ciye muuse bidaar yaa ku heshiiyey maaha oo xoolaha deelista ku dhaqleeya kees noir buu leeyahay boorku xageed geysay lacagtaasoo dhan maxayse dhalinyaradani xaqooga u laayihiin war ninka u yar dhaqaalaha ka soo gala boorka ninka u yar 200 buu xaq u leeyahay markaa runtan ii sheego xoolahan la shubanayo ee la qaadanayo eed qadhiidhaysiin inta kalena etaa baraleel u geynaysiinoo toomi ku lacagasade ragganaa leh markaan xaqiiqda idiin sheego ahey abakar cumar xadii hooyay baayay xoolahan aduma liide xoolahan dadkanaa leh iyagaa sameeyey waa xoogooga iyagaa 24 saacadood taagan iyagaa wiishashka saaran iyagaa markay bukaan dawala
waa inay dawo helaan waa inay guryo helaan waa inay shuruucdii droit travail code de travail 1974 Francisco dhigay baa ilaa imika ku shaqeynaa ma de say uga leexinaysiin sideed uga leexinaysiin sayse ku ogolaanayaan awe allocation familialkii caruurtoodu weligood bay lahaayeen dadka boorka ka shaqeeye dokeerka lahaaye war wixii oo dhan inta dig ka siiseen ayaad masaakiinta doonaysiin ku tumatiin daydin kama yeelan laakiin tuugtiina waad soo celin taqaaniin Abdullaahi Cadaawa sigadow nuuna waa tuug waanad soo celisay laakiin wal tuug maaha iyo raga kale maartay suspension gaad gelisay tuuga maaha maxay ku dhacday kaad abtiga u tahay kuwiinu inay xaq yeeshaan kuwa kalena inay xaq yeelan ba deelasta waxaan u sheegayaa war xaqiina u kaca madaxweynaha la idinka ilaalinaya caaqana dhageysada way kula hadlayaan deelastu in badan baad dhawaaqooga dhageysatood maqli weyday ma ila dhageyso maanta caaq Ismaaciil anaa ku soo tuuraya dhageyso waa kuwani waxaan maxay heedana u sheegaya madaxweynaha in yar baan u sheegaya boorkeena markii la dhisay aan baahed wixii gashay annaga joognaadiye ku shaqeeya markii la yiri dad ahbal ma nahay dad aqal line noo hayn annagu waxaan isoo dhignay war wada ku qaata ka bax qaati uu ka baxay 3 sano iyo xogaa waxaan nidhi hadana dhaqaalaha yeesho wadakii uu yeeshay imika guuso waa ka soqayso journaliyigu ma ku jirnaa marka waxaan leenahay waxa ogolin maanta wixii ka dambeeyo waa inaan helno kontra waa inaan helno mudane madaxweyne waa fariin walaalkeen ninka walcuna waxa lagu fariisiyay waa baadil weeyaan ninka isaga qaniinay ereer de travail qofka haduu ku erinayo ha waa tuu iska damcaysa weeyaan jawaabtaana waan kaaga fadhinaa dadka adiga horbooday u keenay nama horboodayay annagu dad wada dhisan baan nahay waan wada kacnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Abdisame Ahmed Roble. Je parle à mon nom personnel Abdisame Ahmed Roble et au nom de tous les employés de DLS. waxaan maanta baax aan u diraynaa madaxweynaha président de la République iyo gouvernement waxaan leenahay maanta il est temps DLS-tu ay u baahan tahay contrat inay hesho tous ensemble de DLS waxa weeyaan waa communauté nationale ka weeyaan marka waxaan u baahannahay contrat inaan helo shaqaalaha DLS-ta korka GTD joogta waxaan u baahannahay monsieur le président contrat CDD inaan helo contrat indéterminé inaan helo CDI marka midda labaad haddana waxaan kula weydiinaynaa mandagii 2016 Djibouti avant tout le directeur d'un campagne Ali Guélé الله يرحمه قال directeur de campagne 2016 Djibouti avant tout ayaan mar aan u tagnay on dacwadu geynay dadkii suspension laga jiray aan u tagnay marka Ali Guélé il avait rétabli 43 personnes in ARA 48 in ay shaqadooda ay ku noqdaan dadkii suspension ku jiray maantana dayninkii joogtaa monsieur le président in aan dadkaas suspension laga jira uu horeeyo Walac Yaqub uu ku xigo Abdurrahman uu ku xigo Xasan Gooshe إلى مصطفى بينا ضد بدن الساسة يا سسبونسون يجرا ضد بدن الساسة يا سسبونسون يجرا مركا ضد كاس نحن بهنا يتبسمو إن الفونكسيون يكون غدا يعني بهنا pour le nouveau mandat de la jeunesse كانوا وهم بهنا يو كونتراكت سيدي إن هلنا وحين بريزنا سلطان تروح وحبايد المهيا تانا وشينا وحبايد المهيا ويزبكم ما كيرك الرجل لا كل مالين دواي وحو يري مدح ميل ka sareeso la taabta ma jirto wixii madaxtooyada u doonta iyo dawladda baa idinku talisay inaad yoomiye ahaatiin ina marqiina sida loo cabo 15 sano in ka badan anigu walaalkayow shaqaale ayaan shaqaalaanahay haddii aydan sidaa ku shaqaynayn waa laydin soo telefoonkaabad ku shaqaynaysiin waxaan nagu maqalaa Abubakar Xaddi maalin la wareysanayay iyagaaba nasiib la buuro loo telefooniya marka wuxuu soo sheegi doonaa adduunyada telefoonka ku shaqaysa halka ay kaga shaqayso wadankii aan ku dhalanay baa Filipaan ku noqonay Hindi wadankan anigu ku dhashay ma waa wadanku aabahayna ku dhashay ayaan Filipaan ku noqday oo Hindi ku noqonay ما تملح ولا واحد قالنا كونترا أنت ترمينين
in aad ka saxeexdo waa 1250 deelas haddii ayna ka badnayn in badan waad ka dhaga martay baaqa iyaga uu ku soo gaaray 10 iyo 20 in ka badan dadkani way dhiidhiyeen dhammaan way wada kaceen dhanna way wada socdaan madaxweyne walca yaquub walca waxa lagu dilay maxaad madaxweynaha wax u weydiisatay diyaarna waanu nahay inaan ka wada daba dhimanno maalintan dooranayna walca koofiyad oo la saan gelinay maanta dhamaanteedana koofiyada oo la saan wada sidanaa walca yaquub walca waa inuu toddobaadkan shaqo tago warna heede waa inaad baaqa iyagana waa inaad ka run sheegto sida ugu dhaqsaha dhow madaxweyne maanta waa la joogaa mili iyo malabu raggu yidhaahdaa maanta waa la joogaa hawshaasina adiga ku taala xogta haddaan kuugu daro xog baan kuugu daray madaxweyne boorku ma noola ka kontaraaga leh iyo ka aan kontaraaga lahayn hanjabaad تعدي عاقد جوجلين أخسلمو psychologique ayay ku wada nool yihiin dadku ma noola moral mo madaxay ka dhinteen madaxweyne markaa maanta waxaan doonaynaa waqtigii aad ummadda midayn lahayd wadankii waa dhistay madaxweyne wadankii waa dhistay maanta inaad dadka dhisto maanta waa maalintii aad dadka dhisi lahayd madaxweyne wadankii waa dhistay lama arag oo lama maqal population muwada milyan oo 15 baan leh lama arag population muwada milyan oo 8 boor leh madaxweyne wadankii waa dhistay hambalyo maanta inaad ummadda dhisto ayaa kaaga fadhinaa madaxweyne wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حبتك خضرة يا حبتك خضرة حبتك خضرة وهوية واركم ما أطلع حاجة شقي وadiga maqlaya dhalinyaradii deelastu waxay ku yiraahdeen 8 boor baan leenahay waana ka gaajoonayna waana runtooda Abdullahi Cadawasiga prime de logement mushaaradiiso dhowr milyuuna Daawud maxay haye Muuse Bidaar kulli iyagu way la qayoodeen wixii ehelkooga faamigooga waa ka nuuno tuuga uu soo celiyay Abdullahi Cadawasiga ragii masaakiinta ahaa ee iyagoon waxba xadinna sideed madaxweynaha codsi ugu dirataan madaxweynaha dacaaqa maxaa loo doortay haddaan wax la weydiin karayn maxaa codka loo siiyay haddaan wax loo sheegi karayn de haddaba waa waxaan idin sheegayna dhalintu waa kuwa runta sheegay 8 boor ka gaajooda bay ku yidhaaheen waa daranyo xaq waxay u leeyihiin inay guryo helaan xaq waxay u leeyihiin inay caafimaad helaan xaq waxay u leeyihiin congé inay helaan xaq waxay u leeyihiin caafimaad taama in lagula tacaalo waayo iyagaa dhaqaalahan keenay maanta uu Cadawasiga Swiiska kontooyinka ku furtay Abdullahi Cadawasiga waa la casow asidii qalamida daydaymo meyside ragganaad ciishada xaqooga Swiss geysatay de lagaga hadhi maayo kontooyinka Swissna waan keenaynaa haddaan meenada hayno marka caaq Ismaaciil adu tuugtaada aabba u tahay ma kuwa wax dhacaad jeceshay ma kuwa dadka duleeya ayaa jeceshood raalli ka tahay كانت وحولي كاس نوار بولي باركو وليجدنا ولها أيا انتفاعصدا أيا وحلقسيا انتو دا إيا انتو ودو إيا انت ردين عدا لغو كان أيا إتا باراليل شعبك وحلوغا ما قبطو شقالها وحبا لوغا ما قبطو شقالو حق بي أوليين إني وحوغا هلان دا إلاستا وليبا وحي أوليين SGTD وحوغا إني هلان دا ليرادا آباها إي ودن كوغي كنح عيلان إي كن نقضي كوغميسانيسين اed ku gulmeyseen ee 24 saacadood taagan caaq Ismaaciil dhagaha fur dadkani way kaceen dhamaan way wada socdaan dabba loo wada socdaa waana la soo dhaadhacaya waa hadal cad waxa lagu sheegay waligaaba dhagaha ka furaysadee markay suurtu kugu cida Abdullahi Cadawasiga lacagta Swiiska geystay buu carari baan u malayn uu isleeyay waad u cararay marka sigadaw adigu wax walbaad xalaashatay ilaa cuntada aad cunto baarka ayaad ku shaarjeysaa Somaha لكن يجا وادودي دي كونجينا هلا وادودي دي ماركتي كونترات دي ترافاي وارودن كاني كونترات دي ترافاي بولها وحولي كونفونسيون يا فونكسيونير او كونفونسيونيغي واكون داد يوميا كدكتير تليفون markaas waliba retreat ka goynaysiin de retreat ka kala hadaad ka goyseen xaq bay u leeyihiin de contrat determiné inay helaan de xaqoogii bay ku joogan war xaqiina ha ka noqonina ha kana dib ha uga laabanina xaq baad ku joogtiin ciidan iyo calankan iyo boorarkan inaga leh Cadawasigeed kelidii ma yeelanayo Daawud hangaraara oo shafeec oo soo hangaraarayna waxba naguma le dhamaantoodo dhan reerka soo wada diday ee soo wada duday ee na dul yimid war carruurta iyadana leh waxan iyaga leh aqalay leeyihiin
wax walbay xaq u leeyihiin inay noloshooda fikiraanba maaha waayo dhaqaalaha u weyn ragga soo geliya waa iyaga xoolahan lagu faanaya diyaaradaha toomi loogu iibinaya waa dadka soo geliyey dee marka maan idinka yeelna cali naasoolaad kolba meel u dhoofisiinoo makiyaash soo samayste waxaa soo miidha ma anagu inigu haynaay war xishooda wax isku fala carruurta ammaan siiya caruuraha iyaga ammaan noo siiya xaqoogana sida u dhaqsaha badan ha idinka helaan hadday heli waayaanna dee ciiddoodii calankoogii bay joogaan way dhacsanayaan wuxuuda taa anaa kuu sheegaya xaqiiqdii caaq ismaaciil iga ogow aniga ila waxba ma maqashide aniga unbaad warka iga heshaan marka deelesta xaqooga waa in la siiyaa xaqa u baneeyey inuu cabdilaahi maxay ahayda cadaawasigad uu isagu tamataciyo baabura feewiyo dhowr malyuuna wataan isagiyo musabidaar caruurtayaduna ay sidaa u cido oo yoomkoodii suquuqu la geliyo oo yoomiye laga dhigay war ma yeelayna dee taa idinka yeeli mayno xaqoogana way helayaan waxaanan ka ballan qaadaynaa haddaan ammaanada hayno uu ilaahay nagu simo boorku siduu ahaanaya buu soo noqon xaqii ay lahaayeen bay helayaan ninka u yar nolosha jabuuti ayaa la xisaabin 250 buu leeyahay nin walbiba oo dhiiggiisa iyo dhigidkiisa ah oo xaqiisa ah oo korkooda xariir ay noqonayaan maaha raggan haragu ku dhagay qowlaladu cadaadeen ee waxoodii ka gaajoonaya ee diyoom ka dhigtay cadaawe adaduguna saa doonto yeelaysa waa la casay haddaad waa la castay dabay cas baa ku qaadi biidni illaahi alkariim ku talagala war waxa soo gala dalka inagaa leh ummadda shaqaysataa leh maaha nin fadhiga lagu biilayo maaha nin madowna lagu korinayo markaasay weliba yidhaaheen burkinabe baan u furnay halka hor baan ka furteen baanka la furay ee burkinabena waa boonka lagu maaragtay ee lacagta waddanka lagaga baxsanayo anaa runtan ii sheegaya isha ku haya baanka inoo ilaaliya toomi baa loo furay in xoolaha lagu bixiyaa la doonaya laakiin lagu bixin maayo de ma yeelayna taa ma yeelayna caaq ismaaciil baanankan badan caruurtani waxba ma oge war waa blanchiment d'argent waxaayo baana dhaqaalihiisu halkuu maraade ma idinka muuqato maad aragtiin waa blanchiment d'argent waana sheegaynaa waana keenaynaa dadka yagiina way ka gaajoonayaan briefkii baan haynaa anagu caaq ismaaciil drug dealer baa tahay killer baa tahay wax waloo xun baad faraha kula jirtaa armemongaad iibisa droggaad iibisa waxaanoo baanani waa blanchiment d'argent anaa runta nii sheegay reer jabuutow maxaa runta loo qarin carruurtayadii baa saa u ciyaysa hadday cadaalad iyo xaq jire say xaqooga u waayaan say iyagu u xalaalaysa inay guryo iyo lacaga yeeshaan oy kolba diyaarad ku sii jiraan war shaqaaluhu xaq wuxuu leeyahay congé annuel buu xaq u leeyahay haddii uu qofka loo baahdo oo congéga u bixi waayona congé paye baa la siiyaa oo laga yidhaha fadhi waan kuugu biirinayna oo kaa iibsanayna congégaagiiya wixii oo dhan baad ku tumateen maaha ood ka dhigteen meel iminka aad yeelateen oo 99 dhalatay caaq ismaaciil kaa yeeli mayna hortaana uu jiray dhulkan dabadaana uu jirayaa ku talagaltaa carruurtayadu dib u ooyi mayso carruurtayadu dib u cawlnaan mayso u calaacali maayaan dadaan ciidan iyo calankan u dhegana maaragtay xareedayada iyo xaqayaga ku durduuran maayaan oo toomi iyo qadaadweyn marka bakistaneeya waad arki doontiin oo keen nimroduus jooga boorkeennii hore ayaa wuxuu inoogu deeqay raashintii waa la dejiyey 25kii bishii koowaad 2021 isniintii bay ahayd directeerkii onarska yimiday raashinkii waa la dejiyey deeq jabuuti loogu talagalay bay ahayd waa markab weyn oo bakistaneeya waad arki doontiin sawiradaad ka arki doontiin markabkii waa la dejiyey xoolihii raashinkii waa la dejiyey deeqda ahaa ee jabuuti loogu talagalay directeer onarsku habeennimadii buu baabuura keenay uu guray baabuuradii radio bukaaca way daba dhigteen markay arkeen way raaceen baabuuradii nagaar bay ka baxeen direction low iyo caddaa raashinka yaa lahaa caaq ismaaciil ma jabuuti baa loogu deeqay mise low iyo caddaa inay ka baxaan baa loogu deeqay waa calaamata su-aal ma onars maxay u haysaa raashinka bay dadka siiso hadday xaq tahay wixii hore daaniyuhu garay baan aragnay kana miyaa la iibgeeyey maya ma deeq kalaa la sii bixi war deeqda dadkii la siiyey siiyate magaca jabuuti bay deeqdani ku soo degtay magaca jabuuti buu bakistaan ku keenay idinkuna waad dhaafiseen ummadii xaq u lahayd kuwii kaleed maamulayseen baad u geyseen ee doorashada u soo xusheen eed keenayseen eed kaga maaranteen reer jabuuti waxaasi ma dhacayaan baan ku idhi caaq ismaaciil markabka bisha 25keegii rarkii deeqda ahaa laga rogay uu directeerka maaragtay onarsku baaburada keenay xaguu geeyay hala weydiiyo laway cadday ka baxeen taanaa nii sheegaya reer jabuuti soona ogaada xaqiiqdeeda waanad heli doontiin
marka waxaan u sheegayaa waxba laynooguma talagelin hadday deeqi timaado iyo hadday dheefteenna tahay wixii dheefteenna iyo wixii deeqdeenna midna lama rabo inaan wada cawlnaano oon gaajoonnaa la rabaa oo sidaa u balanbalno oo sidaa u cino de waa inaan ka kacnaa fadhiga ila ciidan iyo calankan innagaa lehen waa inaan ku tashanaa oon ilaahay talada saaranaa marka waxaan idiin sheegayaa reer jabuutow waa laynaga maarmay laakiin ciiddi iyo calanku inagama maarmin de innagaa leh ninkii dhoofku yimid bay geeridu dhibaysaa dhagaha fur doohanay dhagaha fur eta parallel doohanay dayacanay cabaada colayay dhagaha fur baan ku yidhi doorasho shanaad ood reer jabuuti intaad ku caardamiso dad kala keento xaaraan bay kaa tahay hadday dhacdana reer jabuuti inagaa dulliya hadday dhacdo inagaa dulliya ka kaca fadhiga aan gacmaha isqabsano aan ciiddeenna iyo calankeenna dhacsano kuwa ay inoo keenayaanna aan isdhaafino iyaga ha raacaan taasaan ku talagalaynaa caaq ismaaciil waxa inoo ballana dadka aad raashinkoogii dhaafisay inay adiga iskaa dhaafinayaan haddaan ammaanada hayno marka dadka laga danaystay iyo dal laga danaystay baan noqonnay annagu laakiin way dhammaatay sheekadii alif leelow leelaya filinadaadii caaq ismaaciil dulligaa dadka badday iyo dibindaabyada adiguna waad ku fadhidaa girgiro dhamac baad ku fadhidaa waad is og tahay xaalkaaga meelaad wax ka soo qabataad leedahay de adigu isdhiib itaa baraleel isku dhiibtaya baari marka lagu keenay maxkamaddii boore lagu saaraya markhaatiga u horreeya waa iyada waa laguu sheegay ma malafka yarun bay ku tustaa markaad yara hadasho markaasaad gibidh indhaha ka siisaa de maraggaagii weeyaan wayna kula fadhidaa ballantuna waa in lagugu furo maalinta lahee lagu geeyo iyadoo markhaatiga kugu furaysa ku talagal shalay cabdalla kaamil soo tii gabood geysa baday kuu daahi dee wakaa de waraabaha habartii cuna habaryartii loogama reeyo cabdalla kaamil ba nasli iyo nagiib bay u dhashay gaboodna way geysay dee adna waa sem isku mid marka waxa weeyaan ku talagal caaq ismaaciil laakiin annaga etaa baraleel oon ognahay waxa ay tahay waxba naga qaadi maysa annaga ciidayada iyo calankayaga dhacsanayna iyadana barqo ayaa cagta saaray indhahaagoshana carruurta iyadu saciyi maayaan raashin dambay jabuuti leedahayna la dhaafin maayo waxaa kaloo jira taad halkan ka arki doontiin ra-iisul wasaarihii yibuutoy greg mobin diyaarad miiraashuu fuuray intuu ciidamada faransiiska u tegay wuxuu yidhi anigana ha la ii heeso markaasaa la yidhi yaa kuu heese diyaaradiiba isku sawiray isagoo shukaankii haya waad arki doontii fideoga oo gafuurkiina tuuraya talow maxaa helaan yibuutow greg mobin waa kan diyaaradda isku miqiiqay waxa isoo gaadhay inuu sugayo hees baabuurka ninkii wadi jiray baa la yidhi maaha isna wuxuu leey miiraashka ninkii kicin jiray ha la yidhaahdo dee yaa heesi aamina faarax casho habeenba meeshii wax ka qoyan yihiin ayay timaadaa luflufka gurataa ee cabaada aamina casho isagana ka casheeyo u heesde waxaa tira miiraashka ninkii wadi jiray kusoo dabaq isagana aamina casho waa inanta soo hangaraaracday gadabursigii dhulka u dhashay ee dhaladka haa ee xundhurtoodu tiilay ee meeshan taalla maadaa ka horreeya 5 tallaabo nayaa fadhiiso aamina casho waan ognahay dee inaad ka dhisatay aqal dee xaafadaad dhisatay tag shalayba waad ka timiday had annaga noogu meeraysanaad garigta noogu wareejin orod soco meeshaad ka timidda waa taqaanaaye aamina casho cashadii way dhammaatay haddeed waa gabaabsi dee kana wuu kaa sugayaa inaad tira miiraashka ninkii wadi jiray ha loo daayo hayne baabuurka ninkii wadi jiray bay ahayd ma kana miiraashka ninkii wadi jiray ha loo daayo walaa suuro walaa sambal xaydan xayadii ka tagtay ee qaawan ee iyadoo sidi muldhaqa soo joogsanaysa kolba meel naa fadhiisoo dadka ka hadh kuwii ku kabaynaya ee jabuuti kugu dhex kabaynayay waa diyaar laakiin adu war iskuma haysid waa la iska kaa qaban adiga wixii kula mid oo dhanba halkan gadabursigii ku dhashay way gaajoonayaan way barriyootaba way sadaqadaysanayaan adoo shalay soo hangaraaracayna waxaad doona dadka jirdhiidho waa waxaa soo miidhan u hees waan sugaynaa bal isagana miiraashka wixii wadi jiray inaadna tidhaahe waa waxaa soo miidhan ninka Ilyas Dawaale Dalaysta Brothers ayaa menaas buu sameeyey Twitterka wuxuu menaaseeyey Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Rasaas ninkii garan baa garan meeda Rasaas yaa garanay reer Jabuuti meesha imika iskool xaajidiida laga dhisay meesha laga dhisay ninkan awowgii baa ku magacaabnaa meeda Rasaas baa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Rasaas oo dhashay Xaliimo Cali Cabdi oo ciidan iyo calankan u soo halgantay Ilyas menaas de markaad inanka u samaysay xaq buu leeyahay inuu wadanka ka hadlo waa carab maaha sheekadu waa wadani dhalada oo ciidiisa iyo calankiisa jooga marka maxaad ku diiday inuu dalkiisa ka hadlo
maxaad sameynaaska keentay haddaad hadashid reerkiina la dhibaatayn reerkooga seed u dhibaatayn labada reerkoogii adaa soo haajiray de iyagu halkay ku dhasheen bay joogaan danaysta brothers waa inanka geeloogu faantada cabayee la sheegay geel faanta cabayana cimrana maasa macne marka inankan yare miskiinka ah ee waddankiiba idinka baxay ee dambi u samaysayna lafihiisa idinka cararay hadduu reesooga dalkiisa ka hadlo madaxweynahaadu ma afakaabaad u tahay danaysta brothers su-aal baan ku weydiiye ma iga warrami kartaa madaxweynaha madaa dadka ka xiga caaqan meesha fadhiya hadduu dawladu jirto adu kama abad dhex muuqateen ninka aad sijiga wadaagtay inaad kursigiisa ku fadhido wax ma u tidhi maalin qura fuaad yuusuf cali kursigiisii baad ku fadhidaa maalin qura wax ma u tidhi dee jeebkaagaad ka raacday landanaysta brothers baa tahay waxbay iskuma tihiin fuaad marka fuaad annagaa wax u adde kaa aad ariyeynaya sidii cabdiraxmaan maxamed axmed rasaas iyo fuaad xundhurtoodu meeshanay taallaade iyagaana beriiska kaakicin xoolahan beenta ah eed guratay de xisaab baa ka dambayn yes xisaab baa ka dambayn de waadaan kuu sheegaya danaysta brothers xaqiiqdaan kuu sheegaya marka inan kaa yaree miskiinkeed eryanaysid maxaad ku eryan xaq buu u leeyahay waa inaan gela'aa halkii uu ku dhashay buu jooga cabdiraxmaan maxamed axmed rasaas ninkii garan baa garan marka cagaha dhulka dhigadeer waad la qayooto geelinii baa faanto cunayo furmaash cabaye furmaash baa geelina la siiya berihana la yidhaahade ila wax kalaa la waaye ku kasta oo xoolaha jabuuti daaniya ku noqda amba cafar ha noqdo amba ciise ha noqdo amba isaaq ha noqdo amba gadabuursi ha noqdo amba daarood ha noqdo sidii koor jaamic dhaga la yidhaahe dhagalaapa dhagacaleen waxaasoo miidhani waa xoolihii dalka waxay ku mabeen kulli waa isku wada mid ninna nin kama naxayo ninna ninkiisa waxba uma aha marka Elias kaalintaadii baad gabtay fuaad kursiga aad ku fadhido fuaad baa leh fuaadna waa adiga ku daawaday ee oran kari waay war muxuu sameeyay waa su'aal waa runtayde marka maxaad carruurta wadaniga ugu diidina xaqooga ka hadlaan inay dalkooga ka hadlaan marka adigu haddaad shalay xaynka raacday maantana ma jeebtuugaad ugu dhici caaqa de ugu dhaca weligiinba maxaa naga kiin galay annaga dameeriya labadiisii daan baad noo tihiin nimo kala jeclinana dhaafa oo iswada raaca iswada raacoo na dhaafa laakiin waxaan kuu sheegayaa cabdiraxmaan maxamed axmed rasaas reerkooga hadday wax gaadhaan waa adigee ogow xaliimo cali cabdina ciidan iyo calankan way u soo halgantay waana la yaqaanaa marka waxaan ku yidhi qof la taabtuu leeyahay danaysta brothers ku talagal qof la taabtuu leeyahay marka waxaan u malaynayaa farahaad kaga guban riwaayadda aad matalayso marka inankaa yare miskiinka ee dalkiiba idinka baxay cabdiraxmaan maxamed axmed rasaas waa ibn albilaad ciidan iyo calankan buu leeyahay carabiga waxaas way dhaaftay adeer annagu reer jabuuti baana la yidhaha qabyaalada qarmuuneed la wareegaysiin halkaad kala timaadeen kula noqda annaga reer jabuuti baana la yidhaahay danaysta brothers xoolahanaad ku lacagaysatay dadkana ale dee aad dhulka u sheeganayso ma garatay marka waa lagu xisaabine anu waan kuu sheegay xaafadaha waa qolyihiinan madaxa diiran leh waa adiga kan kale walaalkaayo madaxa diiran leh meel fadhiista oo ummadda reer jabuuti 5 tallaabo ka dambeeya aad horrooraysiin saasaan nileeyahay anu carruurtii waddanka eed ciisheen eed ku daawanaysiin dhibaatada adeer laynagu cafin maayo taa markaan ka gudbo kii magafe ahaa waad arki doontiin isniintii bisha 25keedii bishii koowaad 2021 8 aroornimo baabuurkii booliiska oo beerihii geedihii magaalada waraabinaya waa maxaa dhacay aw fuwaarigi may isagaa fuwaariye kow isagaa generaala laba wax walba isakale waa kale basbartuu buu noqdaa la yidhi cajab waa la yaabay baabuurkana waad arki doontiin marka wax walba anaa dhammaynayuu yidhi waxaa baabuurka waad arki doontiin baabuurkii booliiska ayaa beerta waraabinaya nooq maalmoona fuwaariga waraabiya meeriga waxa ku shaqale maxaa isaga dhex dhigay muxuu wax walba qaadacmaanac uga noqday dulli buu isbaday waana dulliguu dugsada waxa xun oo dhan isaga ugu yeedha wixii xunba isagaa leh wixii xunba magafaa leh wixii xune laga faanaba isagaa loogu yeedhaa wax walba ummadda ilaahay ka xishootaba isagaa ile waa haddana sidir wandhakh waa kan 27keedii bishii koowaad 21 magafa isagoo tenida sport sita ayuu maaragtay FFDG tagi halka baasariyanka dhakhtarka ku yaala wuxuu yiri xasan siciid baa soo eegaya hadda ila socdo warkayga dhageysta
markuu halkii tagay ayaa la yidhi naga noqo kumaba garanayna ila tenida sport buu sito ruf buu xaafadii buu yimid direyskii booliisku ku dhacay waa isla habeennimadii marka uu soo joogsanayo marka labaad waa 6:30 maqribkii markuu yimid 18:30 ayuu soo joogsaday halkii mercredi 27/01 2020 arbacadii ayuu maqribkii soo joogsaday waa bisha 27keedii FFDG buu tagay waa kii iminka naga tagay maxaa isagoo garaadadii colonelkii wixii ku taxan waxaan doonayaa buuri chef de sécurité Djibouti ayaan doonayaa visit ugu nimay autorisation ma haysanaa la yiraahdo ugu gasho dameesha FFDG baa la yiraahdaa DG baa la yiraahdaa wuxuu moodaya dameesha yarayda halkan uu isagu walaaqanay xaafadiisii daa booliiska meeshii quruntay ayuu moodayaa deeda la socdaya waxaba joogta gabadh la yiraahdo kabtan ayaa taagan kabtan Valerie baa la yiraahdaa tiisi maaha Valerie diisi ha moodinaya waa Valerie ciidamada Faransiiska kabtan Valerie baa joogta iyo Adjudant Nathalie saanta weegan baa la yiraahdaa autorisation aan kugu sii dayno ma hayna iska raalaha isu sida Djibouti buu vous allez prendre un vol bleu saa koose inta la eegal war saco ha Djibouti warka ma jirtee anagu amar aan kugu sii dayno ma qabno wuxuu inta la wareegay maad garanaysiin uu gaalada u jeerjeerayo waxba loo soo dhiibay wixii baa loo soo dhiibay wixii dadku markay bukoodaan sariirta loogu geynayay yaa loo soo dhiibay sixirkii baa loo soo dhiibay aniga ma hayna nin kala geyn maayo yiri shirkii maalintii khamiista ay ku jireen waad maqasheen ee aqalka nasli ku shirayeen caaquna cartuu joogo muu ogeyn ila waxa loo shirayay kursigan in la bedelee oo iyagu ku fadhiistaan oo magafe laga dhig magafe ma generaal buu noqon ma SDS tuu noqon ma booliis buu ahaan ma mukhallis buu ahaan ma waardiyu noqon ma allaaliyo wuxuu noqonaya ilaahay baa lidinku dhaarshay bal waa kaas eega isagu fara badana ma wadankii oo dhamaaniga magafe aygi balaqo wax walba maaniga daway ku diideen gaaladii socay ku yiraahdeen ma galaysid ha volblegi balsaar de captain Valerie ya Adjudant Nathalie arhadaad nin tahay arkee saarde volble baad qaadanaysaa inay sii Djibouti buu naq hal sidii maartay cali kacsiga ayuu kalba madaxa dhan u gundiyada iska soo socday yaa warkiisa ku jira su'aal xafadini tagalkani maaha halkii aad xukumayseen waryaa su'aal laga dhoona dhaaf de uu socday halkii buu ku noqday ceebtiisii isagoo halkii dalaq la sheeg maxaa naga galay annaga wax walo xunba iyaga la wax walo fool xunba iyaga la wax walo maartay mukhallisnimo ku jirtaba iyaga la marka odaygiina wuxuu joogaa halkii de arta ayuu joogay muu ogeyn bashirka xaafada nasli lagu galay muu ogeyn baabuurka lagu soo qaaday magafe si aan loo arag waa la soo qaaday baabuurka la yiraahdo set des 77 baa lagu soo qaaday baabuurkaas lagu soo qaaday inta baralel baaburadeedii waayo waa la arki baa la hadana waa la arkay iyaga aqalkii nasli ku shiray amar dila cadaad doonto warkiina waan haynaa imisuu bedeli masakariyaad ku bedeli ma Xasan Saciid baad ku bedeli ma ayaad ku bedeli dama magaalada dhan baad ku bedeli wax walba isaga noqon aqoon badan oo cilmi badan oo kitaabiye badan kanide aygi balaqo klebas bartu wax wala xun ba aniga xalila yiri la waa maxlale warkaas aadna soo gaaray caaq Ismaaciil de habeenkii dhaweydna nominationkiisa loo fadhiyay eta baralel iyo kooxdeedii halkaas ay fadhiyeen ku shirayeen Ali Cabdina saacadii dambu u yimiday Ali Naakhude halkaas uu tagaysna ashor bentinteen wa taalid kharbaan ya Ali Naakhude xisho meel fadhiiso xaynkan in badan baad ka lulatay fadhiiso oo meel fadhiiso waayeel batay xisho oo dadka ka had Naakhude ka had arkaasad caaqina tiraan carto waxa bax kaade waxaan moodaynaa inuu ninkii bendaa wuxuu furanayaa baa lali warshada bahasha saabuntay dhuu furanayaa baa lali ma dhergo iimaan ma leh muxuu ku fali bal warshada saabuntayda waa bendaa hooyo u sheeg mod avion waxay ahay butee gaaska islaantiisu siiyay bahashi warshadii gaaska uu barigii dhaweyd ka boobay namadii masaakiinta ahaa Faadma Saciid Dawaaluu siiyay uu yiri adigu business ka noqo isnaamka wuxuu daba socdaa baa la saabuntayda warshad yar oo samaysa iimaan la'aantoodu dawata ummadii Djibouti waxba looma ogolo wax walba anaga doonayna benda mod avion hooyo u sheeg xishooyo wax isku fal yaxyax baa idila markaan magacaaga maqle yaxyax baa idila saactimoolow musaasadaada dhag ka siiyo iska fadhi ka daabadaada intaad shidato ad camirato meel fadhiiso
dadkani kuma yaqaaniine falsafadaha iyo qurunka aad ku jirto waa lagu arki dee horana waa lagu arkay beendaacow inaad naf leedahaad moodi de hooya u sheegun weeyaan sheekadaadu haddana wuxuu yidhi warshadii saabuntay dhaha ii furto waa waxa aad arkaysin waa shakaladaha oo miidhan iyo shukaynta iyo waxaasoo mushakala un bay wada keenayaan oy doonayaan dalkaba inay iyagu yeeshaan maqala xitaa baraleel waxa u yeedhay naagihii ambasadeeradu qabin soo wada galabay tidhi wadanka way soo wada galeen amar bay ku siisay waxay tiri habeenkii aqalada garaaca waxaad tiraahin saankiya maandaaga u soo baxa naag walba waa intaasoo 100 oo naagood keentaa baa layidhi hooyo walboo nin qabay oo safiiri waa inay dumar keentaa baa layidhi iminka albaabadaa la garaaca kaalaya saankiya maandaa halkay jirta waad ku silbanaysiin tani waa taa jahanamo ku tagayseen saankiya maandaa baad sheegaye waataad ku silbanaysay caaq ismaaciil burqiba adna waad is ogtahay allana waa ogyahay adna waan ogahay inaanad waxba meesha ku hayn oo dalka la doonaya in la kaa hor wado sidii maqaarki laakiin yeeli mayna igu maqala kaa diidnay ninkii mustafa jaale facebook ayaa maalintii dhawayda khamiista ciyaalkii reer kaarteysan xaafadda reer kashmir khamiistii bisha 28 bishii koobaad 22 ayuu yidhi waa nimanaynaa manifestaasyo baa samaynaynaa shalay waxaa igu maqalay inuu yidhi bukaacaad ii sheegteen iyaa warka bixiyey inaan imanaya ayaa i sheegay mustafa jaale facebook horta halkay ahayd maad garan waa jabuuti marka labaad halkay ahayd maad garan waa kaartesang marka labaad halkay ahayd maad garan waa kashmir maaha dee meeshii aad ka timid dee fayaanbiiriyo mutaahara maaha waa jabuutina radio bukaac meel walba jooga birogaagay fadhiyaan iska daa meel kale birogaagay fadhiyaan marka maxaad leeyahay xidde ha ciidan iyo calankan dadkii lahaa way kaceen adu fayaan biiraad iskaga noqon anaga noo dhiibatay haba noomaad dhiiban anaga wax alla waxaad noo dhiibatay haba yaraate ma jirto xaafadiinii baad ku noqon marka anagu haddaan reer jabuutina adeer waan israacnay waan midownay waxayagiina waan u kacnay annagoo isku duuban oo midaysan ayaan waxayaga u kacaynaa oon dhacsanaynaa mustafa jaale mustafa facebook wixii oo dhan ba adaa xambaarsan markaasaad doonaysa inaad iska dhigto nin waxaya nin wax kala qaqaban maxaa kala qaqaban adigiiba dusdusiyo musuq ku jooge ma mustafa maxamed saciid mustafa maxamed maxamuud mustafa jaale mustafa facebook who you are noo sheeg magacaaga aan meel ku raacne sinjigaad sidato sinjigaagii ma aha soomaali oo dhan baa isku raacday dee marka managadna waali dee waale taa baraleelo xaaba ah oo wixii la sanfiya wixii la sinjiya sideeda 10 kitaab iyo 10 maaragtay qolo sidata laba tolay waa sideeda de anta kamaan minahum waa wada sidaan waa laba tolle waa laba kar waa laba balaayo waa wada waxa aad arkaysiin waa mushakal ka miiran ee khatiyaan ka joogno wixii xun ba iyagu ku naaxaanay jecelin dadka sharafta leh ee nasabka ah ee reer Jabuuti ee wax nacay xitaa kuwa reer Jabuuti aan hayn oo ku dhalanoo yimid oo ku koro ku barbaaro sharaf iyo cisilo iyaga nacay baa jira laakiin waxaan aan xishoonayn ee bagibirsanayna xoolihii Jabuuti ku mabay ee wasaaradii waxbarashada maqaaxi u leeyahay ka dhigtay mustafa jaale waqtigaagii uu kooban yahay ayaama ku haray gabaad baanad ka heesi taa ku talagal inaad gabood ka heesi ana runta kuu sheegaye haddaad moodayso in reer Jabuuti la adoonsada iskalaaf noqonayaan adeer anagu gaalkiiba waan eriyanay mise waaba wiil yaroo ka yimid fayaan biiriyo mataaharo doonaya carruurtayada inuu ku durduriyo marka taa idinka yeeli mayno waan idinka diidnay wixii ka soo yeedhay dowladdan caaqa horta labada safiir iyo raggu israaciye ninna waxba ma qorin ninna dambiga shaqo kuma leh isaga kabaa'irka weeyaan waa isaga ayaa raggan yidhi waxaa sameeya sidaa dhaha waayo dowladdan Soomaaliyeed buu ku waashay dowladdan Soomaaliyeed ayuu u diidayaaba salka inay dhigto dowladdan Soomaaliyeed mashruuc buu ka dhigtay war Soomaalidaad baa leh ummadda reer Soomaaliya leh waa dalkoogi say doonaan iyagu ha yeelaan adigu shalay Kenya Saudigii haystay Kenya Saudinkii colka ahaa Kenya Saudigii ka dabalushay goormaad best friend noqoteen cadowga Soomaaliya ayaa adiga walaalka noqday Soomaha waan ka xumahaydeen laakiin anagu shicib ahaan dhamaantayo waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waa walaalahayo abaal bay nagu leeyihiin abaal raagi rag baale shalay markaan calan ka qaadanay 6 milyaar ayay dowladda Soomaaliya banki Soomaaliyeed ku shubtay raggii ku lacagaystay ee dhacay ka koobaad tahay xoolahana waa lagaaga fadhiyaate soo celide yes man wali lagu ma sheegin ma 6 milyaar ayuu ku shubay dowladda Soomaaliyeed koontka banki Soomaaliga ah ee Jabuuti ka furnaa plus lagaar 6 milyaar ayaa lagu shubay 6 milyaar raggii dhacay ee guryaha ka dhistay adiga u horeeya yes man rutaan ku sheegayaanu ya adiga marka
ma waa lagu xisaabin baad waxaasoo dhan u samaynaysaa war dadka waxooga iska siide xaqooga sii waad dhacday baayac mushtar soomaaliyeed oo jabuuti soo marin oonada dhicini ma jiro nin walbiba lafihiisu kaala cararay haddana ma dowladoodii iyo dhulkoodii baad cadow uga loogi taadii baad cadow u loogtee laakiin anu maanta waxaan ka xumaan lahaa amba aan ka calaacali lahaa amba nabarkaasi itaaban lahaa dowladda soomaaliyeed oo sidii waaye u kala daadsan laakiin maanta inay ku bartaan horta waa guul iyo gobonnimo inay ku bartaan inaad cadow soomaaliyeed tahayna waa guul iyo gobonnimo labaad haddaad moodaysay inay soomaaliya kala daadsan tahay maanta madaxweyney leedahay 2 baarlamaan bay leedahay ciidan bay leedahay way isku filan tahay way u jilib dhigi kartaa Kenya barqay cabaacsan ahey haddaad adigu Kenya wax weyn moodayso annaga kana nahuran kana walaalkaya kana nala dhashay kana dariskayaga kana shalay xornimadayada dhexda u xidhay oo hiil iyo hoo iyo muruq iyo maal ku bixiyay caaq Ismaaciil waad ogtahay maaha hayla waa taagnayde xolay Soomaaliya soo shubaysay ragii quunayay baad ka mid tahay ee daaraha ku dhistay ee guryaha ku dhistay yes marka meel ugu cafin marxaatigan kugu furaynaa anagu haddaan nool nahay marka waxa aad farmaajiyo dawladdiisa u eryanayso de sanku ka qabsado wuu ku naco masuqaagii buu nacay waana nin dalkiisa iyo dadkiisa u soo jeeda marka haddaad doonayso inaad cadow u loogto u loogi kari maysid Soomaaliya la loodin maayo way libin sarayn way saray Soomaaliya oo Ilaahay baan u baryaynaa inuu Ilaahay cududoodii iyo sharaftoodii u soo celiyay Ilaahay ugu wado bagooga burcad isku mariyo adiga ay noqotay waan iska dhaafinaynaa anagu waan iska dhaafinaynaa ku talagal cadow baa tahay kuwiisa u daran dariska u daran cid wala magan oo ana u daran maada hadla shalay tigraygeed wax la cunaysa kuwaad u dhiibtay maaha abiye maada adaga wacad leh maada ballan leh wax alla waxaad ka dhigato damiig iyo damiir xumo ahayn ma jirto adiga ay taa baraleel isku la barbaatiyin marka umada reer Djibouti waxaan leeyahay fadhiga aan ka kacno dalkeena aan dhacsano inagoo isku duuban oo mid ah umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay reer Djibouti haddaan anagu kuma jirno dambiga falka isaga ku shaqale xumaanta isaga ku shaqale isaga ka soo go'day isaga aan mas'uul ka waxa dhacay oo ku xumaynaya umada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed markaad ciidii Soomaaliyeed cadow u loogtay ayaa doonaysa inay ku aaminto ayaa doonaysa in lagu la hadlo kuwan waa kuwii shalay ku dhiciyay dhulka waa kuwii maalkooga iyo muruqooga iyo ragooga ku horay weeyaan abaalaawow waa kuwii de aad xoolahoogana dhulkaaga ku dhacday imisa ninoo Soomaaliyeed baad ku dhacday Djibouti waa la keeni waa la soo tirin cala xaba iyo xoolaha aad ka dhacday adiga dhici jiray umada Soomaaliyeed waligaaba dhici jiray marka anagu haddaan reer Djibouti nahay shacab weynaha iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay kuma jirno anagu garabkiina naga eega anaga garabkiina naga eega naguna tashada haddaan amaanada hayno waxaan leeyahay umada reer Djibouti daliya dibad waan salaamaya waxaan leeyahay fadhiga aan ka kacno dalkeena iyo dadkeena aan dhacsano ilaahayna talada aan saarano salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh